khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhextaagay dadku dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaanaho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkii buu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wassalaam mas'alad allii mas'aladduu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna masalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam mahalulaclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nin reer baadiye oo acraabiya ayaa nebigeennoo saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimiday ayuu cimaamaddii go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmuطallibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buudha 100 halaadoo geela isagana la siiye xaakim haddaad cid ku ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mahalulaclaa dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay mihaalkii u sarreeyey lagu dayanayo